dowladda deegaanka Gambeelle maanta waxa ka qormay dhigane ku cusboonaanaya taariikhda Itoobiya ay wadaagaan qoomiyadaha kala deegaanada ah. madaxweynihii deegaankaas ayaa si degdeg loo bedelay kadib kacdoon ay dhalinyarada deegaankaas sameeyeen markii ay salugeen hanaanka uu wax u wado. haweeney ayaan xilka madaxweynaha loo magacaabay isla maantan la dhaariyay. haddaba sida ay ku yimaadaan kuna tagaan madaxweynayaasha deegaanada dalkan Itoobiya Abiy Ahmed muxuu ugu daday xilka qaadista madaxweynaha Gambeelle maxaa laga baran karaa xilka qaadista madaxweynaha Gambeelle maxay soo uga dhigan tahay dhacdadani dhalinyarada dalkan Itoobiya qodobadan iyo kuwa kale ayaan ku bashaaqi doonaa tabintan anigu waa Ahmed Awga halkanina waa JTN ee soo dhawaada እስካሁን በጋምቤላ ክልል ስራዎችን ማጓደልና ወይም ስራዎችን አለመስራት ችግር አጋጥሞታል። dowladda deegaanka dhaca galbeedka Itoobiya ee Gambeelle oo kamid ah deegaanada ugu xasiloon dalkan ayaa toddobaadkan ay ka qarxeen dibadbaxyo ay dhigayaan dhalinyarada deegaankaas kadib markii uu maamulkaasi ku sifoobay arrimo ay ku jiraan maamul xumo ku saleh shaqo galaan xafiisyada adeeg xumo dhulkoo la isku qabsaday dowladuna xallin weyday musuqmaasuq xarkaha goostay lunsi hantida dadweynaha shaqo la'aanta dhalinyarada oo cirka isku shareertay iyo kaabayaasha horumarka nolosha shacabka ee dhaqaalaha ee deegaanka oo aan waxba laga qabanin wax laga shaxaado mooyaane maamulkii deegaankaas ayaa awood u yeelan waayay in afka ka sii istaagaan cabashada dadweynaha dubaarada u gaabiyaan siina hooriyaan waxayna dibadbaxyada shacab gadoosani oo ay qayb ka yihiin shaqaalaha dowladdu gulgiliyeen inta badan deegaankaas iyagoo oo shacabku si toos ah u sheegay rabitaankooda inay ka hor leexdaan tuugada suudkii saxiixa ku duutiyay noloshoodii iyo xuquuqdoodii dacwadaha ugu badanna ay dadweynuhu si toos ugu sheegeen wasaare Abiy Ahmed in la dhaadhaco burcad dilootay noloshooda macaashkii dheeftana ka raadiyay xukunka ay dadweynaha Gambeelle wahayeen iyo inuu ka qabto gofanaha codsiga shacabka Gambeelle jawaabta Abiy Ahmed kama ayna raagin waxaana durbadiiba timi warqadda xilka xayuubinta madaxweynihii deegaankaas iyo ku xigeenkiisii iyadoo xilka madaxweynimo loo magacaabay Marwo Alameeto Umood oo noqonaysa haweeneydii ugu horeysay ee madaxweyne deegaan loo magacaabo taariikhda Itoobiya waxayna soo noqotay hadda ka hor wasiirka haweenka ee dhallaanka dowladda deegaanka Gambeelle iyo wasaaradda haweenka ee dhallaanka qaranka oo ay xil sare ka hayso kolkii hadda la magacaabay baarlamaanka deegaanka Gambeelle oo saakaba isugu yimi kulan degdeg ah ayaana ansixiyay madaxweynaha cusub halkaas ayaan lagu dhaariyay sida ay ku yimaadaan madaxweynayaasha deegaanada dalkan Itoobiya sideese ay xil kaga tagaan qodobkani waa midka uu waxa ugu weyn iska bedelay madaxweynayaasha deegaanadu hadda ka hor waxa iska soo dhex dooran jiray golaha fulinta ee deegaanada hadda taasi waxa u muuqataa inaanay muhiim ahayn maadaama wadada dalka ay hal xisbi oo lagu midaysan yahay xisbigaasna uu gudoomiyaha gudiga wasaare Abiy Ahmed isaga ayaa si toos u soo magacaabaya madaxweynayaasha deegaanada xilkana ka qaadaya halka laga tashanayna waa miiska fulinta xisbiga barwaaqo ee federaalka xilka turista madaxweynaha deegaanka Gambeelle ee uu ku dhaqsaday Abiy Ahmed waxay ka dhigan tahay in dhagaha Abiy ay u furayeen shacabka maqlayaana oo uu hirgelinay rabitaanka dadweynaha taas oo ah inuu Abiy geediga barwaaqada iyo yoolkiisa ah raadka cagaaran oo wado uu ka hor leexinayo wax kasta oo si uu carqaladeynaya ama caqabad ku noqonaya miyaad filaysaa daawade Abiy Ahmed oo baahida uu dalkiisu qabo marinbiyood awgiis qasab ka dhigay helista bad jidku doonaba ha u mare inuu u joojinayo madaxweyne deegaan oo ku yimi warqad uu soo qoray kuna xidhan kaliya warqad uu qoro haddii uu noqdo caqabada geediga barwaaqada ee dalku hiigsanayo iyo raadka cagaaran ee looga tagayo jiilasha dambe dacwada deegaanka Gambeelle waxa shacabka Itoobiya uga dhigan tahay baraarug weyn iyo inuu dalka taliyo nidaam u dhaganugul soo dhaweynaya dhageysanaya hirgelinaya doorista shacabka diyaarna u ah ka dulqaadista shacabka inuu ka hor leexiyo wax kasta oo caqabad ku ah oo dhan qaryeynaya waana waa kale uu bariyay iyo albaab furmay shacab badan oo hadda ka hor la meel ay kula hagaagaan tabashadooda adigana maxay kula tahay aragtidaada commentiga nagula wadaag